بسم الله الرحمن الرحيم. أن وحكا برانو ويديمهان كلا what is a bank current account and a saving account. أن كوبلونو إن أنقحنو current account وانا كونتو أما أكون أتكفرن كرتيد بانكي كا أو لوغو تلقالي إن أتكماريسيد هول مالميد كادا سيدا بحين تكيردا كورنتادا يوحي لها المال sidoo kale account-kan waxa uu ku ogolaanayaa inaad lacag dhigan kartid ama aad kala bixi kartid intii aad doontid. haddaba siyaabaha kala duwan ee lacagta lagala baxo account-kan waxaa ka mid ah inaan adeegsano check oo haddii rabbi idmo aan ku sharaxi doono cashirka kan xiga. sidoo kale waxaan adeegsan karnaa marka aan rabno inaan lacag kala baxno ATM machine-ka oo hadda koor aan kaga soo hadalnay waxaana ka heli kartaa lifaaq hoose. fiiro gooni ah macaamiisha qaar ayaa waxaa la siiyaa awood ah inay lacag kala bixi karaan koontadooda xitaa haddii aanay lacag ayaga ay leeyihiin aanay ku jirin. si ay taa u dhacdo waxaa laga rabaa macmiilka inuu bangiga ka haysto ogolaashiyo. middaa ayaa waxaa loo yaqaanaa authorized overdraft. haddaan u soo laabanno qaybta labaad ee qeexidda waxa ay qusaysaa saving account ama koontada kaydka loogu talagalay. sida aad magacaba ka aragtaan waa account u qaas ah in lagu kaydiyo lacagta aanan baahida xooggan loo qabin ama macmiilku uu ka maarmi karo intii muddo ah. haddaba macaamiisha waxa ay helaan dulsaar taa oo laga siinayo lacagta ay dhiganayaan koontadan, waayo lacagta macmiilka ayaa awood u siisa inuu bangigu ku sii shaqaysan karo, sida inuu bangigu ku samaysto maalgashi taa uu bangigu ka abuuri karo lacag. haddaba faa'iidadii bangiga uu helay qayb ka tirsan ayaa macaamiisha la siiyaa. waxaa xusid mudan in koontadan kaydka ah ay liddi ku tahay midii aan soo sharaxnay ee ahayd current account, waayo macmiilku ma qori karo check si uu lacag ula baxo. sidoo kale la bixidda iyo dhigashadu way cayiman tahay. waxaa dheeri ah in macmiilku aanu adeegsan karin authorized overdraft oo aan ku soo sharaxnay markii aan ka hadlaynay current account. xog dheeraada oo ku saabsan qeexidda bangiga ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.